السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mararka qaar waxaa dhacda in aynu dareeno inaynu ku jirno marxalad adag ama albaab inoo furnaa inuu nasayka ay soo xiray aynu marxaladda aynu ku sigano inaynu isdiibno ama aynu niyad jabno. ولكن marxaladaas markaa marayno haddii aan fiirino aayadda quraanka ee fi suurati an-nisaa aayadda 19 Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. waxaa laga yaabaa inaad wax dhibsataan oo aad nacdaan oo marxaladda ay soo sheegay oo qofku inuu isdhiibo oo ku sigto ah inaad gaartaan, walaakiin waxaa laga yaabaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wax meeshaas uu khayr badan idin dhigay. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa midkeen inuu ku fakarayay inuu dhameeyo dugsi sare oo dadaal badan markuu bixiyo oo markaas uu jaamacadda usoo gudbi lahaa uu waayo jaamacaddii uu ku haminayo oo kale inuu waayo. waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo markaas noloshii way isa soo xirtay, laakiin asagoo iska jooga 2 sano kadib fursad ay u imaato, fursaddaas intuu ka faa'iideysto uu galo oo uu gaaro wax uusan weligiis yaalihiisba uusan ku fakirinba oo sidii hore 100% uga fiican. taas mid la mid waxaa laga yaabaa midkeen iyo mideen inay xiriir ay sameeyaan, xiriirkaas ay ku fakarayeen inay dhameeyaan oo ay ka guul gaaraan, laakiin marxalado yimaadeen daradeed ay kala tageen, labadooduna ay dareemeen murugo iyo in albaabada noloshoodu ay soo xireen. walaakiin waxaa laga yaabaa midkoodba inuu Ilaahay waqti soo socdo oo kala duwan oo midba meel Ilaahay u furo oo uu siiyo wax uusan weligiis ku riyoonaynin. ma ku fakartay weli inta albaabisa ka soo xiray ama marxalad adag aad soo martay oo ciriir ah kadibna aad hadhowtii tiri wallahi waxa ii ahayd ii sheeg tadriib, waxa ii ahayd tababar, waxa ii ahayd meel nolol albaabo badan ii furtay oo aad ku faraxsan tahay noloshaas adag inaad soo martay oo aad ciriiriga aad soo aragtay. taasi la mid ah nabiga kaleey salaatu wassalaam maalintii uu ka baxay Makka isagii Abu Bakar aad bay u dareemeen ciriir, aad bay u dareemeen ii sheeg in nolol Makka ay ka baxeen ilaahay rasuulku uu ka yiri wallahi dadkaaga ayaa Makka isaaraya maahan weligii ka tageen. marxaladda ayagoo ku jira godkii Thawr ayagoo ku jira ayuu rasuulku kaleey salaatu wassalaam wuxuu ku leeyahay Abu Bakar ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma, maxaad ka filaysaa labo oo Allah uu saddex ku yahay. marka macnaha rasuulku kaleey salaatu wassalaam ruuxda uu hayo ayuu wuxuu gelinayaa Abu Bakar rajada uu hayo oo Allah subhanahu wa ta'ala ka hayo oo rasuulku og yahay marxaladdan adag in laga baxayo oo marxalad kale imanayso oo Makkadan ay ka baxayaan ay dhibsanayaan, laakiin ay iman doonto marxalad kale oo fiican oo khuruujkaas ay baxayaan wayaj'al Allahu fihi khayran kathira. allana uu yeelay nolosho dhanna ayaa miqyaaskaas ku dhisan. marka waxaan rabaa آيات ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إن نقطه قانون أما لو نرش إنه كنت كسن أو مرولي بقى درنتو إن صح سوسن كرتو أن نرش وعلين كرتو أو أسبيه كريسو الباب كهذا وكفر ينقص الصعداء. هذا ما سنتهين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.